السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalkayga walaashayda quruxda badneeday waa aniga walaashahani oo kule markale ku soo dhawaad muuqaal cusub. maanta waxaan isidaa gabadhan yariista waxay ka soo jeedaa cid sabool ah. waxay aruurinaysaa qashinii la soo daadiyay. waxaasay rabtaa inay sii iibiso ee cidooda ku maareyso. waa kuwan asxaabteeda kale meesha ay joogaan ayagana sidoo kale waxay aruursanayaan qashinkii. waa tana gabadhii siday qashinku u gureysay waxay aragtay dharkaasi oo ah dhar iskuul. aad iyo aad ay u faraxday markii ay heshay. waa aragtaa siday u gadgadinaysa dharkii. intay faraxday ayay bacdi ay wadatay qashinka ku aruursanayta ayay gashatay. wax kale isku maysi daalinin, qashin kale maysi fiirinin. waxay soo aaday dhankii xaafada. maskiinta aad iyo aad ay u faraxsan tahay. waxay jeceshahay inay wax barato, inay noqoto ciyaalka kale oo wax baranaya inay ka mid noqoto. duruuf iyo dhibaato ayaa u geysamooyay qashinkan ay soo gurayso. wallahi waxay ka jeceshahay waxbarashada. orod intay soo baashay ayay gurigooda soo aaday. waxay rabtaa inay la wadaagto waalidiinteeda war farxad leh oo ah inay iskuulka ay aadayso ay soo heshay dharkii ay ku aadi lahayd. waxay guriga soo gaartay iyadoo ku qaylinayso hooyo hooyo. hooyadeed inta u soo gashay ku leedahay hooyo bal eeg waxa aan ka soo dhaxelay dhusuqa dhexdiisa. hooyadii waxay ugu jawaabtay maxaa ka soo dhaxeshay gabadhaydii. taas ayay tusisay dharkii ay ka soo dhaxeshay. markaas hooyadii waxay ugu jawaabtay ma dharkan dhusuqa ah. gabadhiina waxay ugu jawaabtay maya hooyo, dharkan waa dharkii iskuulka. ilmaha kulli waxay xirtaan dharkanito. hooyadii ayaa waxay ku tiri xaqiiq miyaa taasi? gabadhii waxay ku dhahday haa, hadda waxaan akhrisan karaa iskuulka sida ciyaalka kale ay wax u akhristaan. markii aan weynaadana waxaan helayaa lacag aad iyo aad u fara badan, waxaana ku dejinayaa guri aad iyo aad u weyn. hooyadii ayaa waxay ku tiri gabadheeda xaqiiq miyaa gabadhaydii, ma guri weyn ayaa i dejinaysaa? haa ayay ku tiri gabadheeda. hooyo ha ka walwalintaasi, guri qof uu leeyahana ma soo tirtiraysid. guri annaga aan leenahay ayaan degaynaa. anigana qashinkan aan soo aruurinaya aan ka ganacsanayno ma jiri doonto. gabadhii iyo hooyadeed ayadoo sheekada dhexdeeda u marayso waxaa soo baxay gabadhii aabaheed. wuxuuna leeyahay labadiina maxaa ka hadlahaysaan? gabadhiideed hadal intuu ka soo bixi waayey waxaa ka soo haray indhataa kalax. museyga wuxuu ku qaylinayaa maamada cuntada ma karaysa ayuu ku leeyahay adiga. gabadheedii ayay la hadashay. waxay ku dhahday gabadhaydii iskuulka iyo waxa la hasaabo looguma talagelin dadka annagoo kale ah. haddana aabihii ayaa dhinac ka soo booday. wuxuu leeyahay maxaa rabtaa iskuul aado? yaa soo aruurinaya qashinka? gabadhii intay xanaaqday ayay carartay. way soo baxdo waxay soo qaadatay bacdi ay ku guranaysay qashinkii. waxay lahayd hami, waxay rabtay waxbarashada heer sare inay ka gaarto. haddana waalidiinteeda ma awoodaan inay ka bixiyaan lacagta iskuulka. way soo baxdo waxay soo aaday dhinaca iskuulka. waxay ka soo boodaysaa darbi oo waxay rabtaa ciyaalka ficeeda ah sida ay wax baranayaan inay soo aragto. say u soo socotay waxay soo istaagtay dariishada. waxay ka qooraansanaysaa ilmaha say wax u baranayaan. maskiin fasalka ay dariishada ka fiirinayso waxaa ku jirtaa macallimadan oo waxay ciyaalka baraysaa cashirkii la siinaya ciyaalka ayaa iyadoo bannaanka taagan ka daba aqrinaysaa. waxay rabtaa inay wax barato haddana ma awoodo. markii loo dhameeyay way soo baxday oo waxay soo aaday dhanka guriga. iyadoo jidka socoto waxaa maskaxdeeda ka dhex guuxayaa waxa ciyaalka loo aqrinayay. marna wuu ka dhumayaa. way soo xasuusanaysaa. way soo orada maskiinta oo waxay soo fadhiisatay geed agtiisa. aad iyo aad ayayna u fikiraysaa. markay meesha fadhiday way soo baxdo waxay soo aaday dhanka gurigooda. waxaa la gaaray waqtiga haweenka. dadka kullina way jijifteen balse iyada weli way soo jeedaa. way soo baxdo guriga ayay ka soo baxday oo waxay soo aaday dhanka bannaanka. waxay soo qaadatay dharka uniformka wayna dhaqanaysaa. waa haweenbar. waxay rabtaa bari inay iskuulka la aado. markii ay bogatay way soo qaado xiriga ayay ku soo waratay. markii dharka ay u qalaleen way soo qaado way feereysanaysaa. waxay isku diyaarinaysaa sida iskuulka ay ku aadi lahayd. salaadii waaga markuu bariyay soo baxday dharkii uniformka intay soo xiratay ayaa waxay soo aaday dhankii iskuulka. waxay fiirinaysaa darbiyaasha oo idil. waxay aragtaa meel ilmo yar ay ku ciyaarayaan. haddana waxay aragtaa ilmo hoolifay meel ku ciyaarayaan. way yaaban tahay gabadha.
haddana markay dhanka kala jileecday waxay aragtaa wiilal ciyaarayaan kubadda gacanta. way yaaban tahay. Dhanka kale ayay haddana jileecday waxay aragtaa gabdho ficeeda ah oo meel fadhiyaan oo buug akhrisanayaan. way soo baxdo waxay soo aaday dhanka fasallada. siday u socotay waxay ka dhaxdhacday fasal macallimad ay ku dhex jirto. gabadhii aad iyo aad ayay iskugu naxday. macallimadii ayaa weydiisay ma ku cusub tahay meeshan? gabadhii waxay ku jawaabtay maya. macallimadii waxay gabadha weydiisay haddaba fasalkay ku jirtaa? gabadhii waxay ku dhahday qiiqdii aniga ma aha ardayad ka mid ah ardada iskuulka, balse waxaan rabaa inaan wax barto. macallimadii ayaa waxay dhahday miyaa rabtaa inaad wax barato? waxay ku jawaabtay bal ii arag, xitaa waxaan qabaa dharka iskuulka sida ardayda kale camal. macallimadii waxay ku leedahay maxaa sheegaysaa? maba ku garanaye. waxayna ku soo dirtirtay gabadhii waardiyaha iskuulka. waatana iskuulka sida looga soo bixinayo. maskiin waxay lahayd hammi. waxay rabtay waxbarashada inay heer sare ka gaarto, haddana way u suurtagali waysay. markii laga soo saaray iskuulka ayay dib u sii eegaysaa. maskiin niyad jab aan caadi ahayn ayay ku rideen maskiinta. la gaaray waqti habeen ah. habeenkii oo dhan maysan seexanin oo waxay indhaha la raacaysaa dharkii iskuulka. haddana way soo qaaday oo waaga markuu u baryay oo waxay ku soo celisay meeshii horey ee ooga qaaday ayay ku soo tuurtay. saad aragtaan maskiintan waxay lahayd hammi. hammigeeda waxay waysay qofku sabood gareeyo, waxayna iska soo tuurtay dharkii. waxaa heshay mid kale oo qashinka aruursanayso meesha fadhiyo. haddaba waxaa jiraan arday badan waalidkooda garab taagan. cunuga wuxuu u moodayaa waalidka markuu wax bara leeyahay inuu cabiidinayo. ogow waalidkaaga markuu wax ku barayo wuxuu kula jecel yahay heer sare. waxaa jiraan ilmo aad iyo aad u fara badan oo aanan haysanin waxbarasho sida hadda gabadhan oo kale. waad arkayseen sida dhibaatadii iyo waxay u maraysay si ay wax u barato, haddana waqtiga ayaa u saamixi waayay. walaashayday walaalkayga quruxda badnaayo, waxaan kuula talinayaa fursad qaali ayaa haysataa. markay ku soo marto waxbarashada ee ka faa'iidaysayaan ku dhihi lahaa. waxaana qisadii inala socodsiinaysay waa anigoo walaashiin hani ah. muuqaalkiisa xiga intaan ku kulmi doono. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.